وتضرات كدقن كي جامعة نيو جنريشن bandhigi doonaa bandhig suugaaneed iyo weliba mid dhaqan oo kala duwan oo ardayda jaamacadda dhigtaana ay ku soo bandhigi doonaan qaar ka mid ah abwaanada halkan joogaana qaarkood ay bandhig suugaaneed ay noo soo bandhigi doonaan waxaynu ku horraysiisan doonaa heestii astaanta calanka jamhuuriyadda Somaliland ugu waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadaha New Generation Muumin Sheekh Umar ayaan u yeeri doonaa waa maalin ka duwan maalmihii kale waxbarasho ee xiisadaha iyo jawiga waxbarasho aynu ku kulmi jirnay runtii waa maalin xusuus gaar ah inagu yeelan doonta waxa laga yaabaa ardaygu muddo kooban inuu jaamacadda joogo muddada koobana xafladaha noocan oo kale waxayna soo marayaan muddo aad u yar marka runtii waxay noqon doontaa xusuus waayo aynu ka sheekayn doono inagoo maanta ku faanayna dhaqankeenii suubanaa ee runtii aynu ka dhaxalnay awooyaasheen iyo hooyooyinkeen intaba runtii dhaqanku qiimo badan buu inala leeyahay waana wax mar kasta identity-ga iyo qofka shakhsiyadiisa iyo runtii mar kasta lagu qiimeeyo waxaan rajaynaynaa barnaamijkan inay ka faa'iideen dhalinyaro aad u fara badan oo ay barteen ciyaar dhaqameedka muddada tartanka iyo diyaar garowgu socday waxaan rajaynaynaa inay dhalinyaro badan ay ka faa'iideen runtii diyaar garowga ay u diyaar garoobayeen tartamada kala duwan ee halkan ka dhici doona ee su'aalaha iyo qaybaha kala duwan bale waxaanu mar kale ku faraxsanahay barnaamijyada noocana inaanu qabano oo aanu horena u qaban jirnay waxaan rajaynaynaa insha Allah muddada uu tartanku inoo socdo inuu jawi aad u qurux badan oo aad u degan oo xusuus leh oo qiimo leh uu inoo noqon doono waxaan u mahadnaqayaa abwaanada iyo martida ka soo qayb gashay barnaamijkan oo iyagu qurxinaya barnaamijkan oo runtii iyagu noqonaya garsoorkii iyo cidii kala saari lahayd ardaydaasi halkan ku soo bandhigi doonta barnaamijyada aad ku cajiibka waxaynu dhamaanteen marti u nahay arday u diyaara ku faraxsan ku tartamaya xiiso badan u haya inay halkan wacdaraha iyo aqoonta ay dhaqanka u leeyihiin ay ku soo bandhigaan waxaynu inaguna ku soo dhaweyn doonaa dhiirigelin iyo farxad iyo wajiyo aad u furan baynu ku soo dhaweyn doonaa waxaan ku dardaarayaa ardayda halkan ku tartami doonta inaynu isla nahay isla ardaydii jaamacadda arday kastana runtii dadaalka iyo garashada uu leeyahay dhaqanka buu ku guuleysan doonaa ama lagu maamuusi doonaa ama uu guusha ku qaadi doonaa laakiin guushaasi inaga inoo muhiim ma aha marka aynu nahay dad wax baranaya iyo arday marka aynu nahay waxa idin muhiima barashada iyo qiimeynta aynu qiimeynano dhaqanka ayaa inoo muhiima iyo aragnimada aynu ka faa'iidano insha Allah waxaan rajaynayaa tiimamka halkan hadhow toole lagu yeeri doona inay nidaamka iyo systemka iyo habka jaamacadda ay ixtiraami doonaan si qurux badan oo wanaagsan ay uga qayb gali doonaan tartanka kuliyad kasta waqti isku mid ah la siin doonaa bacda maghribka hadii ilaahay qadaro waxaynu gali doonaa qaybta ciyaaraha ardayda oo 3 ciyaarood ku tartami doona oo ciyaar dhaqameedkiya
saddexdaa ciyaar dhaqameed ayaa kuliyad kasta laga rajeynaya inay ku tartamaan iyadoo halkan ay kaga tartami doonaan ciyaarta aynu wada naqaanay sayliciga oo kuliyad kasta ay ku tartami doonto ciyaarta labaad ee lagu tartamayana waa botorka ama jaandheerta oo iyaduna runaantii ciyaarta labaad ee tartanka noqon doonto oo kuliyad kasta ay ku tartami doonto ciyaarta saddexaad ayaa iyadu waxay noqon doontaa mid kuliyad kastaba ay tay doonto ay ka dhigan doonaan oo iyada oo lagu ciyaarayo music ay markaa ku darsan doonaan kuwa hore waa bila music oo waxa ay jiibtii iyo jaantii bay kolley isla heli doonaan haddii la yidhaahdo qaabkaas buu tartanku inoogu dhici doonaa intaa ka bacdina waxa toos inoogu bilaami doonaa suugaanta iyo runaantii dhalinyarta hibada u leh ee new generation ka mida ayaa halkan inoogu bilaabi doona waxaanu ku soo dhawaynaynaa runaantii abwaanada qiimaha badan ee geeskeyga fadhiya iyo martida kale halkan inoo fadhida iyo hormuudada kuliyadda oo halkan inoogu dhammaystiran iyo maamulka gabiley guddoomiyaheenii guud oo isagu inoo jooga oo hadhow toole kelmadiisa inoo odhan doona dhammaanteen waxaanu ku faraxsannahay barnaamijkan inuu si qurux badan oo qiimo leh inoogu dhaco waxaan rajaynaynaa labadaa cisho ee barnaamijkan uu socdo inay noqon doonaan 2 cisho oo waaragnimo iyo aqoon dhaqanka aynu ka faa'iidi doono inay noqon doonaan 2 cisho oo farxad iyo reyn aynu ka heli doono runaantii bandhigyada dhaqanka aad baad u mahadsantihiin waxaan u yeedhi doonaa abwaan ismaaciil jiheeyo ku hadlaya ama afka abwaaninta halkan martida inoogu ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaan maamulka iyo macallimiinta jaamacadaha new generation mahadcelintaa waxaan ku siinayaa qiimaynta ay qiimeeyeen afkooda iyo dhaqankooda ay iyaga oo maamuusaya tartan u samaynaya ardayda gubaabinaya hibada ku jirta soo saaraya inta ay bandhigan abaabuleen inay annagana nagu soo marti qaadeen marka ugu horeysa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda ayaan uga mahad celinayaa mar labaadka waxa aan u mahad celinayaa ardayda kolley qabanqaabooyinku had iyo jeer ardayday ka yimaadaane afkaartan iyo aragtidan soo bandhigtay iyo kuwa hibooyinka galagaarkaa la yimidba iyagana aad baan u bogaadinayaa waxaan jecelahay inaanu haddaanu nahay abwaaniintana dee waa la kala leeyay in cabdilaahi xasan gani loo yeedhaabay ahaydoo abwaan dhalaye in aniga laygu soo horreysiiye may ahayne waxa weeyaan marka waxaanu ka qayb qaadan doonaa kolba wixii aad soo bandhigtaan iyo sidii cadaaladda aan u eegi lahayn aan u kala saari lahayn hadal badan ma sii odhanayo inahaasaan ku soo koobaya waxaan u yeedhi doonaa abwaan cabdilaahi xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay maalin dhaweed baa waxaa dhacday anoo raysla ka xiiranaya sheekadaas si fiican u dhegaysta kuma dhaaran karayo laakiin waa run weeyaan ayaa nin ag fadhiyey baa waxaa dhacday wuxuu iska duubayaa snaab buu iska duubayaa afkuu taagayaa dabnuhu dhaqaajinayaa ragguna dee meelaha qaar inay dhaqaajiyaan maaha saddexda meelood ninka weyn inuu dhaqaajiyaan loo galay ma garanaysaan waa dabnaha indhaha iyo wixii jilbaha ka hooseeya ninkii wuxuu iska duubaya aanu la yaaban oo isla ninka weyn mana xushoonayn waxay sidii dumarku dee wejiga khayraad jiniyada samaysanaya ayaa nin weyn ayaa soo hor istaagay ninkii baa ku yidhi waa niyo baryahan baan ku raadinayo maalintii dhaweed arooskii aynu tagnay meherkii la isku laayay ayaan rabay inaan su'aal kaa weydiiyey horta arrintii maxay ku dambaysay ninkii baa ku yidhi haa arooskii waa tii khamiistii la isku laayay kelmaddii xaqa ahayd buu yidhi waa soo hadalka u dhigay kelmaddii xaqa ahayd markuu suldaanku yidhi ayay waa kuwii dee reerkii kale iswaalay waar ninkii weynaa baa ku yidhi waar muxuu dee suldaanku hadlay ma suldaanka weyn ee yidhi sodohda jeceeloonu isnaqaanay baa leeday kelma xaq buu yidhi waar deegaanka iyagoo dhan waa laga ogayo kelmaddaasi xaq bay ahaydee reerku iyagaa kiiska iska waalay ilaah baa yaabi keenay kor bay u hadlayaan wuxuu ku yidhi waar wixii doonta maxaa makaama sidii bay isku laayeen mayane markii wuxuu yidhi suldaanku kelmaddaa yidhi waa tii sodohdii habeenkiiba life u soo gashay ee hilfaha baallaha ka garaacday kadib odayaal ergaa dhex galay odayadii markay meeshii yimaadeen bay yidhaahdeen waar haddii ay suldaankii iyo sodohdii kala calaf qaadeen carruurta yaa la yimid jabine ha la isku meheriyo markaa wuxuu yidhi waan iloobayna kuu soo sheegay jimcihii baaba meherkii dhacay odaygii baa ku yidhi waar xitaanaan imaadeenbaba meeshaa lagu dhintay haddaad soo sheegtee laakiin kuwaasi indhay isku raagaya ilama laha wuxuu yidhi jimcihii buu meherku dhacay markaa gelinka hore markuu dhacayo muxuu ahaa meherku ayaa hoolka gudihiisa
gelinka dambana arooska lagu qabanayay maalinimada marka jimcihiiba waa la isafgaran waayey sabtidii way kala tegeen ninkii buu ilaahay yaa u keenay ninkii baa ku yidhi waar masuudadii markaa suldaankii baa dagaal kale dhex maray maye wuxuu ku yidhi inankaa rabay in lagu wareego oo lacagta hoolkana isagaa bixinayay isuu yidhi yaa wareegaa see loogu wareegaya dee sootan aroosyada inta kursi loo dhigo ay aroosadu taaj ku wareegto hees nacabka buufinaysana loo qaado 100 jeer baad aroos lagu wareegay aragtay maxaad laga waalaysaa uu ku yidhi wuxuu ku dhinaad riga dhaari wallahi aan wax lagu wareego aroosyadoo iskar fadhiisanay ugu dambeysay laakiin markaa maxaa dhacay markaa inankaa rabay in lagu wareego inuu kuna bahal ficil miidhan u haayo wuxuu yidhi maxaa lacagtu iga baxaysaa dan lagu wareegayna aroosadina weydiita intaasi kula tegeen marka waxaan bilaabayaa maasadii sheekadaas la wadaag sheekadaas inaan ku riyooday in layga sheekeeyay inaan sameeyay in cid ka xaday ma kala garanayo kumana dhaaran karo laakiin maqnaatiyay leedahay gabdhaheena uubka geelaya adhigiyo wuxuu yidhi adhi miyiga joogay cirinkooda hilaaciyo olo laguma sheegee qurux waxaad u eegtay kombiyuutar abal iyo iPad-ka oo kale application badan ay qof ismaara ina tahay dadka aan u sheegay say wallahi adiguna mool furin aroorey airport-ki loofkaay airplane-ta duushaay spaghetti malaqraay alfredo cheese-laay adhi caanihiisaay ubaxyada guduutee laga helay store-kaay blueberry udgoonay abal iyo tufaaxay qare aad u weynay ininyaha garaybkaay orange lagu qaboobayna yaab labaatay wuxuu yidhi muuqa iyo aragtida screen touch baa tahay garashiya aqoontana iPhone-ka qaar iyo malaa 5S baa tahay information-kaaga satellite-ka aado fikirka iyo odhaahda iyo helitaanka ereyada Google laga adeegtiyo internet yar baa tahay hadalka iyo aftahanada mar idaacad baa tahay dusha laba ateen iyo button iyo alaab ku leh marna aalad kale oo unugyada sirdoonka iyo FBI ay qaataan waxaan si malaa waa halo ugu sheegay application badan ay qof ismaara ina tahay dadka aan u sheegay say wallahi adiguna skinkaagu waa light style-kaagu waa wow speed-kaagu waa fast smell-kaagu waa ubax speech-kaagu waa nice absolutely cool iyo qof amazing ah anna duudku jecelo duud waa taqaanaa sama wiilkay u yaqaanaan Mareykanka aad isticmaalo duud hadii la dhaho waa wiil anna duudku jecelo dhiidka rabaan mana ihi mid dhaamo Axmed qana dagaalka iyo ubadka iyo oorida afka inaan ka laagiyo abuse-ka ma aqaan odayada gaboobay SSI-da qaatay Starbucks-ka joogay aroortii kafeega iyo isku cuna kiniinka intay wada wareeraan isku uubateeyay isu uraysiifay isku wada xanaaqay isa seegan kuma jiro kuwa aabahooda iyo cid soo ankaartay iska rida surwaalka stress-ka joogay iyagoo tarbiyiciyo in iyo qalaafale isku haysta gaangee isku toogto suuqday geedaha afuufay aqli guri kuma jiro kuwa beerta aadee irbada iyo siliijkiyo isku dura karaagay la iloobi kuma jiro reer aakhiraadka iyo inta qaadku qaatay ka leelkii godad lagu asqoobiyo fadhiyada iblis kale ku abaaray kuma jiro gabadhu isku haysinaya magti mitidiinta armiga aakayga haystay afka duubta badankee aaga kismaayo laga helay afgooyi iyo colka aw masuuriyo al-shabaabna kuma jiro kuwan badi aroosyada inta badan ka heesiyo heesihii islaamaha inabadan ku heesiyo alfanaana ma noqon adiguna udgoonay waliga inkaariyo indhahaaga meel daran isha wali kumaad qaban ma dara kalaabyada after party ma tagin huuka baarna maadiman double abal la dhuuqiyo afka shishad mad galin anna kula mid baanee inuu xaalku all right iyo wali okay yahay ansarada su'aalaha emailka soo gali aad wad maasantii waxaan ku soo dhaweyn doonaa abwaanka waan ku soo noqonayaa oo salaada kadib been ayaan siin doonaa waxaan ku siin doonaa wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Dr. Cabdixakiin Saciid Bustaale salaan kadib runtii farxad weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan dhaqanka ah ay jaamacaddu soo qaban qaabisay oo runtii macno weyn u sameynaysa dhaqankeena macno weyn u sameynaysa fahankeena ardaynimo dhalinyaranimo iyo waayaha kala duwan ee suugaaneed ee afkarashada salka u ah inay dadkeenu isku fahmaan waxaan aaminsanahay in inta halkan fadhida iyo inta kale ardayda ee joogtaaba qof waliba uu leeyahay hibo gaar ah hal abuur gaar ah oo ku salaysan dhaqankeena iyo hidaheena wanaagsan waxaan idin rajaynayaa inaad halkan ka soo bixi doonaan hal abuurro qiimo badan tusaalooyin wanaagsan aad u haysataan abwaanada halkan inoo jooga oo iyaguna suuganyahano waaweyn ah dadkeena afkarashada iyo tabinta suugaantana kula wadaaga hadba xaaladaha jooga hadday noqoto ta dhaqanka hadday noqoto tawaayaha bulshada
hadday noqoto tadhigaalka bulshadeenna u ah ee isbeddelka dunida ka socda jaamacaduhu waa halkay ka soo baxaan aqoonyahanku waa halkay ka soo baxaan hal abuuradu waa halkay ka soo baxaan hogaamiyayaasheen u baahannahay in lagu soo tababaro hogaamin kalsooni leh hogaamin hal abuur leh hogaamin aqoonta ay baratay iyo dhaqanka ay baranayaan ay ka muuqato bii'adooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin jiritaanka ummadnimada sal waxa u ah waa afka hooyo dhaqankeenna suuban iyo diinteenna oo runtii iswaafaqsan jiritaankeenna soo wahaanayo waxaan xoojinayaa marka suugaan laga hadlayo abwaanadii baa fadhiya suugaanta marka horeba tix iyo tiraab baa loo qaybiyaa tixna waynu garanaynaayo waa intaa maaso iyo suugaan raacda tiraabna waa hadal iyo wixii raaca intaas suugaanta raacaysa hadday gabayo noqoto hadday ciyaar dhaqmeed noqoto iyo hadday noqoto ciyaaraha kala duwan ee suugaantu leeyihiin runtii dhaqankeenna aada u fara badan haddaan idii tiriyo inta ciyaaroodii jira waxaa laga yaabaa inaad saylicigaasoo ka garataan iyo laba kaloo lamida deegaan walba ciyaar baa laga ciyaaraa gaara saylicigaa la ciyaaraa batorkaa la ciyaaraa baloolaydaa la ciyaaraa jaflahaa la ciyaaraa duuladaa la ciyaaraa batorkaa la ciyaaraa waxaa ciyaaro oo dhani mid walba deegaan gaara bay leedahay khaafiyad suugaaneedoo gaara bay leedahay naxwaha suugaanta la saarayo midhaha saarna gaar bay u leeyihiin halkaana naxwihii baa ka gelaya hadday eekeeyo noqoto hadday sarbeeb la saarayo suugaaneed noqoto hadday yamxeero la noqoto hadday buunbuuni noqoto hadday silla sugan noqoto suugaanta oo dhan bay sal ku tahay marka waxaan rajaynayaa intiina halkan fadhida inaad wax badan ka faa'iidi doontaan hibooyinkaa kala duwan lagu soo bandhigayo waxaan idiin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waa dhiirigelin kolley arday baynu nahay tabac iyo hadday maal noqoto waynu bixinnaa inaynu waxbarashadeenna aynu ka dhabayno waxaa la yidhi dalkaagii wacnaayiyo dalkii baa ku sugayo inaad darajo gaarto qarankaaga dahabka door weyn ka qabataa lagaa doonayaaye bal dareen ujeeddada ku shaqee damiirkana kolley iskuullaynu soo marnay ilaa 15 sano ayaynu waxbarashada ku soo jirnay waalidkeen waxay u dadaalayaan inaynu noqono roor moodeelka beritoole waayo hooyo jecel ma jirto inankeegunu baalashno noqdo ay gabadheedu guryaha soo masaxdo laakiin hooyo kasta waxay doonaysaa inuu wiilkeegu madaxweyne noqdo gabadheedu agaasimo noqoto intaaba idinka rumayn kale hooyooyinkood waxa ku soo gabagabinaya hayaankuun baa lagu gartaa ruux hadduu gudhaye ham iyo waxaad gaar isleedahay bashow le hamigaaga saxda hirar weeyaan abwaankeennii kale ee isagu suugaanta halkan inoogu soo bandhigayey axmed cantar baan ku soo dhowaynayaa axmed soo dhowow dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa barta sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladdan aan idhaahdo munaasibadda maamuuska toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda new generation abwaanada sahra halgan oo imika inagu soo biirtay jihooyin nala joogay madaxda kala duwan saaxiibka Ismaaciil iyo Khadar Baaruud iyo dhammaantiin aad baan idin salaamayaa ardaydeena aad baan u salaamayaa kullu in badan oo halkan ka mid ah ardaydeedii way joogaan oo fadhiyaan wuxuun baan u nimi maanta kullu ardayda iyo hibada ay soo bandhigayaan iyo suugaanta iyo dhaqanka kala duwan ee ay nala wadaagi doonaan in aanu u taagnaano oo aanu ku dhiirigelino isla markaana tartanka ay ku jiraan kala saaridaanu ka qayb noqono aanu nimi laakiin maadaama aanu joogno kulay tooleyno ardaydu wax la u sheegno oo aanu wax la wadaagno ayaa iyadana barnaamijka ku jirta oo naloo sheegay marka inkastoo kulay toolo aanaan dee suugaan badan diyaar u ahayn aanu halkan ka jeedino kulley maansuun baa inta badan ayaan odhan doonaa waa kii Cabdilaahi iga horreeyey ee soo bandhigay maansadii aniguna miduun baan haddii la ku dari doonaa imika markaan halkan fadhiyay baa waxaan is idhaa talow ardayda maxaad la wadaagtaa maxaad ardayda talow u sheegtaa markaa waxaan is idhi kolley tolo arrimo siyaasadeed iyo arrimo noocaasa suugaan ku saabsan munaasabaddeedii maaha waa arday dabaaldegaysa oo muxuu ahaa cultural week ku jirta markaa waxaan is idhi maadaama dhallinyaro u badan yihiin malaha arrimaha jacaylka iyo wixii ku saabsan ayuunbaa iyaga munaasib waa waan is idhi markaa halkan waxaan ku hayaa waan sidaa maanse hugun la idhaahdo maanse hugun
la yidhaahdo oo aan isla kolley bal iyaguna wixii aqoon iyo cilmi kala baxayaan ha kala baxaan maansadaa waxaan sameeyey imika waxaan sameeyey 2014 intii aanan guursan ka hor baan sameeyey imika alxamdulillah waan guursaday reer baan leeyahay laakiin intii aanan guursan aanan reerayn ka hor baan sameeyey waana process marxalad kolley intii aan reeraha lahayn ardaydii oo sida aad u badantihiinna aad mari doontaan waxa ka hadlaysaa maansadu bal qofku marka uu jiraa aad guursatid ama aad nolol reer samaysid haddii imika lagu yidhaa qofka aad guursatid maxaad ku soo xulan lahayd wax kuu diyaari mii jiraan oo aad qofka ku xulan lahayd mii jiraan inta badan malaha waa mayaan u malaynaya laakiin su-aashaasi waa su-aal anigu aan isweydiiyey oon isla bal imika haddii lagu yidhaa qofka aad doonaysid waa laguu samaynaya gacanta laguu samaynaya imika bal sheego shuruudo maxaad sheegan lahayd baan isiri moogta maxaa adiga axmed ahaan kuu muhiimadee wax alla markaan cabbaar dee rogrogayey aan cabbaar ma garanaysaa aan anigu isbaadhay wixii iga soo baxay ayaan maansada ku soo ururiyey waa duco waxa weeye waxay leedahay ilaahayow mid noocaasa oo caynkaasa oo astaamaha leh oo astaamaha leh oo astaamaha leysi xagga dambena waxay leedahay ilaahayow midda astaamaha leh waa astaamihii xumaaye ee astaamaha leh ilaahu iga leexi bay leedahay markaa dhinacaana waa ka duco waxay tidhaahdaa kashaa huguntoo i hawshay culaysna ishaysan weyday hawraarta anoo ka soomay cabbaarna ka hawl yaraystay garaadkaa yidhi ha'layda ku laaba haloosigeeda xiskaa hadlayoo i haysta ifaray hurintaa da'dayda habliyo doobkiyo barbaarta dhallaanka hadduun hadaaqay doqay harsanaysa geedo ilaa guri hooyo joogta haddeerto inaannu sheego xog aan kal horeeto huurshay murtina waan kuu hayaayo hagaagu dhegaysa heesta marka halkaasi shuruudii ka bilaabayaan wuxuu leeyahy rabbow mid hankeedu nooliyey haybteeduna tahay aqoonta waa shuruuddii koowaad soo maaha midaan haybteedu ahayn oo aan ahayn ree hebel baan ka aan ahayn laakiin haybteedu tahay digrii baan oo master maxay aan ka aho biish dhacankaasa ka saasoo kale oo haybteedu ay waxbarashada iyo aqoonta tahay okay midaan dhaldhalaal hodaynin hayaan ku jirtoo dadaasha taqaana hirkay kasheedu hangoolka ku tiigsanayso oo aan hadba meelu haadin haabhaabin curkoon iswaayin kartida halladiigu dheeriye midaan qurbo looga heesin shisheeye ka haybadaysan ku faata dhulkeeda hooyo raggay u taqaan halyeyga kuway hanadada ku sheegto hadraawi u soo horreeyo oo qays halmuceeddadiisa huryihii heesaha jacaylka hawdhaarta gadhleed dalaysan dushaa ka higaadinaysa murtida hagar laawo haysa taqaana haldoorradeeda mid aan hawldoorradeeda iyo rool moodhaliskaygu aanay ahayn dee michael jackson iyo lil weyn aanay ahayn laakiin haldoorradeedu yihiin hadraawi iyo gaariye iyo abwaanada la midkaa iyo dee iyo muxuu ahaa dadka dhaqanka iyo muxuu ahaa soomaalinimada iyo suugaantaba muxuu ahaa ku sugtan mid uu hadalkaygu deeqo oo aan foodlay la haysan hinaasa midaan ku waalan hubsiimada laga habaarin garaadkeeduna hagaayo horteeda markaan istaago midaan ku ilaawo hawsha harraad iyo daali haysta habeeniyo midaan dhanaarba dhankeeda u soo hiloobo halkaa markaan marnay baan sidhi waxyaalaha aad iib geynaysid iminka nin dhaqaale haysta oo shaqaystay oo caynkaasa ma tihid nin wax kale haysta ma tihid waxyaalaha aad iib geynaysa waxaa ka mid a in ilaahay ku siiye hibadaad wax ku curin kartid oo abwaan tahay taasi miyaan muhiim ku hayno gabadha haddana taa waxba u arkay ka hor so iyaduna dee hawl adag maaha marka iyaduna qodobada way ku jirtaa oo waxay leedahay tixaha hufanaan hormeeyo hogmaanseedka iyo higaadda murtida ku hagoogan laabta ee mawluhu ii hibeeyey midaan ku hareera tuulo hawraarta midaan ku baanto hobeeyo hobay idhaahdo u heese habeeniyo maalin haween waa lama huraane wanaagga midii horseedda habsaan iga baajinaysa hiilii noqotoo i haysa dhabeel jecel horumarkayga oo aan hadaf qura wadaagno hoygii kalgacayl hadheeyo hoostiisaa lagu nastaaye rabbow mid u heellanaata hoggaaminta qoys hagaagsan hormood u ahaanshihiisa haydaara ka weecintiisa u haybadyegleeliddiisa dhallaanka hanuunintiisa dariiq ku hagaajintiisa daryeel ku hagoogiddiisa aqoon la huboo hagaagsan hadhuub uga buuxintiisa aqoon la huboo hagaagsan hadhuub uga buuxintiisa
hufnaanku barbaarintiisa sabaan uga hiilintiisa halkay hoobaani taallo u sii hindiwaasintiisa handhiiran u yeeliddiisa hal seegan u toosintiisa tilmaan ugu hiilintiisa habsaanka ilaalintiisa markay talo fara ka haado sabanku hootada afaysto heeryada noloshuna cuslaato wixii la hayaa yaraado farajna soo hooban waayo hayaankuna hawl badnaado midaan dhaqsa ii huruufin haydaar iyo hiif bilaabin darteed anigoo u heermay haraadna naftii i hayso harkana aan sooba joogsan hiyugu idiroo u helan inaan hanta baahideeda duruuftana kaga hagoogto midaan hal aday ka quusan hortayda ka soo hiqlaynin huqdiyo ciilkaa i haysta ku biirin anoo hafeefta ilmadu dhabankayga hoorto dareenna is haysan waaya halkaa markay haddaba marayso intaasi waa intii aan lahaa rabbow intaa isii oo igu soo hagaaji intaa waxaa ka dambeeya intii aan ka ducaysanayay soo maa rabbow ha igu soo hagaajin mid hawlan mid hiiftamaysa mid heellan mid ii hubaysan mid haadda mid aan is haysan habaarka mid aan hambaysan mid aan hareer istaagin tixdaydu halkaa ha joogto hor eebbaha soo rumowdo nasiibkuma soo habsaamo jawaabtuna waa ha dhowto مشاهدة كلمة دسين دونا مشاهد سهر هلقن الفنان صعب كاينوت الله waxaan u malaynayaa maaha markii ugu horreysay aynu ku kulanno wiigan dhaqanka waayo waqti hore ay noo horreeyey waxay ahayd baan u malaynayaa 4 sano ka hor innagoo halkii yareyd ku jirna maasha allah maantana halkan inay ku jiraan inay jirtaba maan ogeynay dee baraha bulshadaydaan ku badnay new generation oo waan u malaynayaa dadkiiba wax baraysaanoo waxaa ka mashquuliseen waxaan ina jiitay ee ina dawakiyey laguma dhaame dhaqaaqa hortay ibni aadanku isku diinna wuu noqon karaa isku dalla wuu noqon karaa isku dadna wuu noqon karaa isku kalarna wuu noqon karaa isku afna wuu noqon karaa laakiin waxa keliya tee ibni aadanku ku kala duwan yahay waa dhaqankiisa iyo halka ay ka soo bilaabeen dadkii dee dalkan iyo dadkanba lahaa dhaqankeennii hooyo marka aad baan ugu hambalyaynayaa jaamacadda inay maxay ahayd ay qiimayso qadariso hidaha iyo dhaqanka waxaad moodaana raggu raalliha iga ahaadaane hidaha iyo dhaqanka inaanu annaguuni nahay kuwa salka u dhigaa ee hadday caws noqoto iyo hadday kabad noqoto iyo hadday alool noqotaba sameeya sababtaasaan aanu u hadalhayn badnayn waayo waxaan dareensanahay ama aan rumaysanahayba haddii uu ninintu fadhiisto caws iyo kabad samayn lahaa la odhan lahaa xariif magaalada jooga xariif miyibaa yimi la odhan lahaa waayo dee intaasoo waxa aynu kaga duwanay raggeenna ayaynu samaynay oon hiddo dhowr ku haynaa iminka 10 sano dhowr bilood baa uga hadhay waxaan u malaynayaana haddii nin samayn lahaa in dee cid waliba taageeri lahayd oo maxay ahayday la garab geli lahaa oo la odhan lahaa aynu kasii ballaadhino intaa oo wax ka qurux badan maaha dhaqankeenu intanun kuma eka wax ka qurux badan baynu haysanaa inta yaree meelahan taalee lagu arkayo laakiin waxaan idinku hambalyeynayaa inaa xasuusataan oo xustaan dhaqankeenna aynu dadka kale kaga duwannahay aynu dadka dheernahay gaar ahaan dumarku adduunyada marka ad yurubtaa iyo maraykan iyo dhulkaa tagto dee qof waliba qaxootigii waxaa la odhan jiray shubkaygana hoo shubkaagana keen tubiya mooyana keena laysku tumee nacamtii waxaagana la kaale waxaygana waan la imanayaa adduunyadana waxa weeyaan mushaharkaagana keen mushaharkaygana keeno aynu wada qaybsanno innaga ayaa dadkan oo dhan uga horreynay haddaynu nahay haweenka Soomaaliyeed inantu iyadoo gurigeeda wadata ayay iman jirtay dadkani shalay bay dhasheen ayay iman jirtay laakiin waxa weeyaan waxay u baahan tahay in la qiimeeyo la kobciyo oo la kaalin geliyo wuu siqiiray dhaqankeenu iyo inaynu dhaqankeena dib ugu noqono waa waxaynu leenahay waxaynu dadka kaga duwannahay waxaynu jecel leeyaan waxaan idinku guwaabinayaa raggana maaha inaan idinku yara tiiqsanaye inaad dee garabkiinni baa marane
aadee ka qayb qaadataan baan leeyahay jaamacaddana waan hambalyeynaya iyo madaxdeeda madaxdana maan salaamina dee nin waliba meeqaamka iyo sharafta iyo karaamadu leeyahay iyo curiyayaasha halabuuradaba waan idinku salaamaya waan idinku dambeysiyey raalli ahaada ardaydana waan salaamayaa waxaynu geli doonaa qaybtii tartanka ee ardaydu tartamaysay waa qaybtii ugu xiisaha badnayd ardaydu ay soo bandhigayeen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo ay ku kala tartamayaan fakallada kala duwan ee jaamacadda waxaan mikrofoonka ku soo dhowaynayaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda muumin sheekh cumar baan u dhiibi doonaa isagaana sida loo kala ciyaaraya iyo kooxda soo horreynaysa iyo fakaltiga soo horreynayaba isaga ay noo sheegi doonaa ku soo dhowow waxa aynu ku soo dhoweyn doonaa si uu mas-uuliyiinta iyo marti inoola joogta sidoo kale inoola soo dhoweeyo guddoomiyaha guud ee jaamacadaha New Generation ayaa halkan markana ku soo dhoweynaya kolley habeenkan idinkaale ardayda loo sameeyey ardayda loo qabtay ardayda ayaa ma taqaanaaye ayaa extracurriculum activity loo sameeyey waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inay ardaydu maanta inay caawiyagu ay leeyihiin ay jaamacaddu ku sharaftay ay ku ixtiraantay waxa weeyaan inagu dhaqan baanu leenahay dhaqankeennii aabayaasheen awoyaasheen hooyooyinkeen ayooyinkeen aanu ka dhaxalnay dal waxaa lagu qiimeeyaa dalka caalamka oo dhan waxaa lagu qiimeeyaa airportka markaad ka soo degtid ayaad arkaysaa dhaqankii ay dadi lahaayeen ama diriisku ay dad ay xidhan yihiin dhaqankeenna ee muhiimka waxa weeyaan waxaad moodaa baryahan dambe inaanu wada reemigaal aanu noqonnay aanu dhaqankii aanu ka tagnay dabadeeto jaamacaddu iyadiioo xoojinaysa afka Soomaaliga iyo dhaqankeena suuban ee Ilaahay ma taqaanaa inoo siiyay ayay jaamacaddu ayay ma taqaanaa sanad walba ayay markan oo kale ay qabataa run ahaantii waxa loo baahan yahay waxa la qabanayaa tartan waa la tartamayaa ciyaar dhaqameed baa lagu tartamayaa cuntooyin baa lagu tartamayaa waxyaalo fara badan baa lagu tartamayaa jaandheer baa lagu tartamayaa inaan la xanaaqin ina loo samro ina loo dulqaato waxaan waxa weeyaan waa ciyaar waa tartan inaad u dulqaadataan waxaan leeyahay dhammaan ardayda dadka ciyaaraya markay halkaas soo istaagaan ha la ixtiraamo ha la qadariyo waqtigiisa ha la siiyo abwaana halkan fadhiya waa la qiimeynayaa laga yaabaa inay laba abin wax isku sheegayaan inay waxay ku qiimeynayaan marka laga yaabaa saaxiibka oo guulaysan lahaa inay wax ma taqaanaayay hadalkiinaas in wax seejiyo ayaa laga yaabaa marka fadlan intuu saaxiibka ama kuliyadaadu aad seejin lahayd markiska la siinayo inaad ixtiraantaan weeyi aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley way noo furan tahay xafladdu aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaynu u yeedhi doonaa oo kelmad aynu ka dhegaysan doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed habane madaxda jaamacadda sharafta leh guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeex bahda dhaqanka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf iyo karaamay tahay in madashan bilan ee boqoran lagu soo casuumo dhaqankiyo beeruhuna ma kala foga waxaan leeyahay bulsho kastaa waxay ku faantaa dhaqankeega waxay horumaraysaa dhaqankeega waxay dhiirigelisaa dhaqankeega ka jaamacad ahaan waan ugu bogaadinayaa inay dhaqankeennii iyo milkihii iyo sharaftii ay horumarayso ay kor u qaaddo ay xasuusiso jaamacadaha kale ee dhiggeega ah taa waan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay oon aad ugu faraxsanahay dhallinyarta soddon jirkay hoosaysa ee quruxda badan ee iyagoo badankoogu aan ku dhalan miyi oo magaalo ku dhashay haddana dhaqankoogii si fiican oo wanaagsan u soo bandhigaya waxaan leeyahay hambalyo 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 walaalayaal sidaad og tihiin xafladaha sidan oo kale ah munaasibadaha sidan oo kale ah waxa suurtogeliya waxa ilaahay ka sokow waxa suurtogeliya nabadda iyo amniga aynu haysanno haddii una qaran haysan nabad iyo amni xafladda quruxda badan ee saas inoomay suurto gasheen waxaan leeyahay dhammaanteen
han isku tiirsanaano amniga hayna laashano walaaltinimada iyo isku tanaasulka iyo turaalaha waddanka jamhuuriyadda Somaliland intaa uu ku soo caanamaalay inaynu mar walba garab istaagno ayaa inagu waajiba qaran wuxuu horumaraa marka dhalinyartiisa iyo cuqaashiisa iyo culimadiisa iyo hogaamiyaashiisuba ay isku tiirsan yihiin ay aarowgooguna iyo yoolkooguna isku meel u jeedo laakiinse haddii tafraaruq uu jiro meel lama gaadho walaalayaal waxaan siyaasadda iyo waxbarashaduna waa kala laba haddii cilmiga iyo maadiga iyo diiniga aynu baranayna ay siyaasad soo dhex gasho qofku waxa uu baranayo kama midho dhaliyo waxaan idinku dhiirigelinayaa waxaad tihiin ubixii waddanka waxaad tihiin nuurkii waddanka mar walba wixii wanaagsan ee waddankeena horumarinaya inaynu maxaahayde ka shaqaynaa waa muhiim bulshaduna waxay horumartaa marka jiilalka u soo kacaya iyo dhalinyarta jaamacadaha uga baxaysa ay leeyihiin hiigsi iyo himilo insha Allah biidni Illaahi tacaala waan idinku dhiirigelinayaa waxaan sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaadba madaxda jaamacadda aan ugu bogaadinayaa waxqabadka fiican bilicdan iyo quruxdan ka muuqata uu juhdiga u geliyeen waxaan leeyahay saaxiibkay Cabdiwaasic oo marna saaxiibkaya marna walaalkaya jazaaka Allahu khayr cilmigaas iyo tabaca balaaran ee geliso waddankaaga haddii aan nahay madaxdii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waanu ku ognahay waanu kugu garab taaganahay talo iyo tusaale intaba waan kula garab taaganahay idinkuna waxaan leeyahay dhaqankeenu iyo diinteena iyo cilmigeenuba insha Allah biidni Illaahi tacaala asrayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tartanka waxaa ka qayb geli doona 2 kooxood oo gabiley ka socda iyo 4 kooxood oo ka socda kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda qaybteeda Hargeysa marka waxaanu soo dhaweynaynaa kooxda koowaad ee gabiley ka socota sacabkii martida waynu raacinana sacab aan ku soo dhaweyno waayahay waa kooxda labaad ee gabiley ka socota oo iyaduna diyaar garow fiican ka muuqdo soo dhawaada ayaan leenahay ardayda quruxda badan ee ka socota campuskeeni gabiley safar bay u soo galeen inay ka qayb qaataan madashan quruxda badan leh waxay diyaar u yihiin inay halkan wacdarahooga iyo aqoonta ay dhaqanka u leeyihiin ku soo bandhigaan waynu soo dhaweynaynaa sacab baynu ku soo dhaweynaynaa waayahay way mahadsan yihiin waxa aynu uga tegi doonaa masraxa tiimka koowaad oo qura markan waxay noo bilaami doonaa tartanka ayaa noo bilaami doonaa tiimkan waxay soo bandhigayaan sayliciga wax muusiga uma baahna iyagaa isku garanaya qalabkooda iyo jiibtooda iyo jaantooda waan ku soo dhaweynayaa masraxa
ardaydaas waxay matalayeen kuliyadaha waa arday dhigata kuliyadaha teknolojiyadda ama computer science cilmiga computerka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee caafimaadka ee campuska Gabiley ayaa ardaydaasi bartaan waynu fasaxanaa waxaynu yeedhanaa kooxda labaad ee Gabiley ka socota waayahay kooxdana waxay haysataa muddo 3 daqiiqo ah waxay soo bandhigi doonaan ciyaartooda iyo waliba masrax ciyaareedkooda ciyaarta sii daaya
لكن هاستي بقى في هراء سيلي المكسر هاستي بقى بقى واحد شيء aan soo dhawayno waxaa Mustafa kooxdiisu garoonkay soo gashay
waxaan isteejka ku soo dhawaynayaa oo aan u yeedhi doonaa kooxda ku ciyaaraysa kulliyadda computer science-ka kooxda gabil ka socota ayaynu masraxa u banayn doonaa iyaga bilaabi doona wareegga labaad ee lagu tartamayo jaandheerta ciyaarta jaandheerta lagu tartamayo iyaga bilaabi doona nin walba wuxuu keensaday ee uu tabcay ayuun baa loo qiimeynayaa halkaana uu kala tagi doonaa bismillaahi baari sii daaya waqtiguna waa idii bilaabmay
waxaan u yeedhayaa oon stageka ku soo dhowaynayaa dubkii labaad ee jaamacadda Gabiley gobolka Gabiley jaamacadda New Generation haddaba waxaan u yeedhayaa oo ku xiga waxaan u yeedhi doonaa business economic maxamed amiin baan u yeedhayaa waxaa laydinka codsanayaa fadlan intay ciyaartu socoto wakhtigooda ay ku jiraan sacabka iyo qaylada labada midna haddii kale dhibcahaad waayeysaan
waayahay waad mahadsantihiin waayahay aad baad u mahadsantihiin wakhtigiinniina laydin siiyey sidaasuu ku dhammaaday kooxda ka qayb qaadanaysa toddobaadka dhaqanka ee jaamacadda new generation ee ku tartamaysa social science and lowga kulliyaddaasi u tartamaysa gacantaasoo fudaydiyaan
wareeggii labaad amaba botorkii jaandheertii ugu dambaysay waxaan u yeedhi doonaa combyuter saynis ayaan u yeedhayaa waaya بعد ما شغال سميع ومشكلة خلاص ما شغال الصوت واي waad maasantihiin uu idiga dhacay taamki waay kooxda labaad ee ka socota jaamacadda New Generation business hargeysa aad baad u maasantihiin waqtigii la idin siiyay uu idiga dhacay waayahay aad baad u maasantihiin group 2 gabilay
واقاك عاد بعد ما ستين واي waxaan u yeerayaa kulliyadda caafimaadka ha soo gacan dhaqsato soo gala hore u soo gala garoonka hore u soo gala waqti baa idigu socda sii daaye waayahay waqtigii waa idiga dhammaaday hal daqiiqaad haysateen halkiinii daqiiqo waad ku kifaaxdeen nabadgelyo aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin
Thank you.